wararka degdega ah ee haatan inaga soo gaaraya magaaladaasi muqdisho ayaa sheegaya in xilkii laga qaaday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugan haatan ay la hadlayna magaaladaasi Dhuusamare iyadoona warar ay soo baxay ay sheegayaan in loo diiday lacagaha bangiga dhexe xisaabaadka ay golaha wasiirada ay ku lahaayeen buuq badan kadib waa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay shir jaraa'id xilka looga qaado gudoomiye mursal ayaa shir jaraa'id qabtay wuxuuna ku dhawaaqay in 170 xildhibaan ay xilka ka qaadeen وزاري هوري سوماليا حسن علي قيري وزاري عو عمرك ديرا دادي سنة اي قارتي 3 سنو يدور بلود خلاف كما دفعناها فرماجو اي قيري اي سوشي تما يمدوين كي ودن بي ايضا نما انت لو كلا بحي وانا رسول وزاري هوري عن wax qarasha ku bixin riddiisa marka la eego xilliga la joogo ee doorashada oo xildhibaanadu ay fiirinayaan in waqtigooda la sii dheereeyo كلاف كجنتيسا يا إم مدحوينها سوماليا وربو إنه قدر صدق وقت جا مدة حلقي ساعة وكده ما أنت دور بلاد هالكان الجزارون وربو إن دورشة وقت جدا يكون عضو هي صقع هي ما مقبلة سوماليا وزارة قير ودنبين ما أنت أي حلقة غير قاضي مدحوينها سوماليا نها تنعيد لها الله دقيقة كورنا وحوا أقبلي إن حلقة غير قاضو رجل زاريه سي حسن علي قيري دومي مرسل وشر جرائد قبتها يا شيء إن حكومته ay ku fashilmatay inay dalka gaarsiiso hal qof iyo hal cod taasi oo ah wax jira laakiin cid walba Soomaali ah waa ogtahay inaysan dhici karin wadankan inaysan ka dhici karin wax lagu sheego doorasho qof iyo cod dhanka kale buuqa ka dhashay arrinkaasi ayaa madaxweynaha dab ku shubay isagoo na sheegay in uu ahaa wixii uu dhacay wax sharci ah dastuurkan uu qabo hadalka madaxweynaha ayaa u qornay sida tan مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية محمد فرماجو أي وحا سو قارتي قوان كحلبانات قراها الشعب كعودك كرسونية كلام نقضين حكومة الوزارة حسن على خيريه مدحوينها مهمة دوار كي من مدى هي هذا الدستور جاي دولة فدرالك قارهان مرحلتها عن كجرمو بس أساقا قدانا هي واجب كدستور جاي تقلنا هي أود الدستور جاي قراها الشعب كولو أقبلي قوان كقراها الشعب كا كل فقان شاع حكومة هي هذا الشرع قد جنتا وعمد وجهيسا هرمرك لسميه إيران ويقيس هرمرك لسميه مدحوينه فرماجو وحسين دغدغ u soo magacaabay ra-iisul wasaare soo dhisi doona xukuumad dalkan ka saarta marxaladda ugu jiro kala guurka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu imaad celinaya ra-iisul wasaare xasan cali khayre howlkarnimadii uu muujiyay muddadii uu xilka hayay waa shirkii jaraa'id uu qabtay madaxweyne farmaajo oo ku sheegay in xilkii laga tuuray ninkii lagu magacaabi jiray wasaarihii hore Soomaaliya xasan cali khayre labadooda khilaafkooda sanadkan u dambeeyay kaliya ayaa la ogaaday laakiin marar badan ay isku qabteen talada dalka laakiin hoos ayaa loo xalinayay dadka ugu soo shacbi xilin waxaana loo maleyn jiray inay daacad ku yihiin laakiin madaxweyne farmaajo weystii ayaa ka jabtay ayaa la dhihi karaa oo wuxuu noqday waxa ka baxaysa meesha in asaga iyo wasaarihiisa isla dhameyn doonaan taasi u ahayd asaga campaign uu ku galo doorashada isagoo la sheegay in 30 sano kadib مدحويني وهري جزاري وهري إسفهما أي إنه قضينا عساق حسن على خيره لكن ما أنت يودن الله الله يلا ثاني شرط جولايا أي أنا كاسي سوق الجمهوري حسن على خيره ورك ودون وح وشيء دون لما قرنا يو لكن وحين أكيد دونا وح حاجة